وهجاك يونس wuxuu ka mid yahay guddigii qabanqaabada ee xafladii weyneed ee quruxda badneed caawa daawanaysiin ee lagu qabtay magaalada Göteborg ee caasimadda labaad ee dalkan Sweden Yunus waxaan rabnaa inaan wax ka weydiino dadka u fududeeyay xafladani iyo qaabkay ahayd iyo bulshada ka soo qayb gashay iyo shucuurtooda بسم الله الرحمن الرحيم walaalkiis waa maasantahay marka hore TV ga qaranka waan u mahad celinayaa iyo TV da walaalaha kale qayb ka ahaa xafladan qabanqaabadeeda wallahi waxay ku timid dumar ayaa meeshan is abaabulay noo soo bandhigay xafladan ay dhigi doonaan annagana waa ka ajiibnay oo wixii karaankeena waan ka geysanay sa arkayseenba xafladan waxay ka turjumaysay shucuurta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ku nool gobolkan Gothenburg ee caasimadda labaad ee Sweden sida shucuuraha kale ee walaalaha u muujin caalamka dacaladiisa ku kala sugan Soomaaliyeed doorashadii ka dhacday ay xalaasha ee wadanka Soomaaliya ee ku dhaxmartay 24 musharax iyo madaxweyne Xasan Sheekh khayr Allah ka siiyo oo si sharaf leh xilka u wareejiyay waxaan markaas ku guuleystay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo dadka inta badan yiraahdaan waa madaxweynaha shacabka marka maxaa kaga baxay maadaama shacab badan ay ka soo qayb galeen xafladii oo Soomaalina isku timid maxaa ka codsateen shacabkii oo halka shacabka waxaan ka codsanay sidii madaxweynaha uu baahida uu muujiyay oo ah in shacabkii ay isku tashtaan in ciidanka xoogga dalka uu ummadiisa iyagu ay u fiiriyaan gacan walaaltinimo waxa ogtahay walaalo shisheeye wax laga sugaa waa iska dhibaato badan tahay interesiya iska imaan kara ama conditionyo iska daba wataan marka waxaan shacabka ku dhiirinaynaa mar walba inay iyagu u istaagaan sida dawladda Eritrea ay sameeyso kale shacabkeeda dunida ku sugan u gooyaan qando ama waxay income soo gala in 2% u gooyaan aan ogahay taas ma gaarino misdahay ma gaari karno laakiin waa gaarina laakiin waxay u baahan tahay in loo shaqeeyo la tuso daacadnimo iyo meel lagu wajaho lacagtaas si ciidamadaas ay u aad wax cadeyn inay u helaan shacabku san u maleynaa inay waxa ka baqayl doonaan meel kasta oo jaan shacabku waa shacab oo u baahan bis leader sax ah inay helaan ay aaminaan leaderida soo maray inta badan ma dhihi karno waa wada xumaayeen laakiin waxa qaldanaa mar walba ama meesh ka maqnaa ii sheeg muxuu ii sheeg isfaham hadda waxa malaysaa sanad ka dambaysa in isfahamka loo dhawaanayo dhanka dimuqraadiyadda mar walba kama maqneen laakiin Soomaaliya waxaan isleeyahay inta dawladda soo martay ee ku meel gaarka ahaa ilaa intan hadda maanta timid in mid ka dambaysay wax u sii dhiibaysay wax fiican dhaxal fiican ay gaarsiinaysay tan waxaan rajaynaynaa inay mid mustaqbalka ay gaarsiiso inta in ka badan